والله لن نقوم بأي ضرر kulanti wanaagsan daawadayaasheeda sida tooska ah ugu xidhan Somali TV kuna soo dhawaada warbixin aanu si gaar ah diiradda ugu saarayno khilaafka dhinaca webiga Niilka ee u dhaxeeya wadamada Suudaan, Masar iyo sidoo kale Itoobiya. dhawaanahan waxaa soo laba kacliyay khilaafka webiga Niilka ee u dhaxeeya wadamada Masar, Suudaan iyo Itoobiya. Sanadkii 2011 ayaa dawladda Itoobiya waxa ay bilowday dhismaha biyo-xidheenka webiga weyn oo ay ka dhisayso isla webigaasi Niilka. Khilaafka ugu weyn ee wadamadan ayaa waxa uu haatan ka taagan yahay hawlgelinta biyo-xidheenka, taasi oo ay dhinacyadu isku maandhaafsan yihiin sanadaha buuxinta ee biyo-xidheenkaasi. dawladda Masar ayaa haddaba boqolkiiba 90 waxay baahideeda biyeed ka heshaa webiga weyn ee Niilka, waxaana ay diidan tahay sanadaha biyo buuxinta ee dhaamkaasi ay Itoobiya wado. dawladda Itoobiya ayaa iyadu waxa ay doonaysaa in biyo-xidheenka ay ku buuxiso muddo 2 sano ah, halka dawladda Masarna ay rabto in biyo-xidheenka lagu buuxiyo muddo 10 sano ah. khilaafka ugu weyn ayaa ah intaasi. biyo-xidheenkan ayaa noqonaya ka ugu weyn ee qaaradda Afrika, isla markaasina adduunkana ka noqonaya biyo-xidheenka tobnaad ee dunida ugu weyn. waxa uu soo saaraa 6,000 oo megawatt oo koronto ah. biyo-xidheenkan ayaa dhererkiisu waxa uu gaadhayaa 155 mitir. haddaba aynu eegna dhanka Itoobiya. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Dr. Abiy Ahmed Cali ayaa ku hanjabaya in dalkiisu uu ku soconayo jadwalka dhismaha biyo-xidheenkaasi haddii uu wax waliba ay dhacayaan. dhanka Masar dhigiisa ayaa iyaguna ku hanjabaya in biyo-xidheenka Niilku uu yahay noloshooda, wax walbana ay u hurayaan. adduunka ayaa hadallada noocaasi ah u arka in uu keeni karo dagaal u dhaxeeya dawladaha Masar iyo sidoo kale Itoobiya. haddaba dhinacyada ayaa yeeshay kulamo dhowr ah oo la doonayay in heshiis lagu gaadho, laakiin kama aysan soo bixin wax is-afgarada. sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa dhexdhexaadin ka dhex wada sidii la isugu soo dhaweyn lahaa. Masar ayaa sanadkii 1970 badda waxay ku weerartay qalab ay Itoobiya rabtay in ay ku buuxiso biyo-xidheenka, isla markaasina ay ku dhisto. weerarkaasi ayay Masar gabi ahaanba waxay ku burburisay qalabkii dawladda Itoobiya xilligaasi ay rabtay inay ku buuxiso ama ay ku dhisto webigaasi. taariikh ahaan labadan dal ee Masar iyo sidoo kale Itoobiya ayaa waxa dagaal isaga hor yimaadeen 2 goor oo midkoodba sababtiisu ay ahaayeen webigaasi Niilka. labadaasi dagaal ayaa waxa 2 goorba la jabiyay dalka Masar, laakiin taariikhdii hore waxba ka tari mayso maanta oo ay taagan tahay khilaafkii mid lamid ah. xuduudda labada ciidan ee labadaasi dal ayaa aad u kala sareeya, waxaana ay Masar ku horeysaa dhan walba marka laga eego. dhanka cirka Masar waxay haysataa 192 diyaaradood oo nooc walba leh, halka diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya aanay dhaafsiisnayn 82 diyaaradood oo kaliya. Masar ayaa sidoo kale waxay haysataa 260 kaare, halka Itoobiyana ay haysato 300 oo kaare oo kaliya. Itoobiya ayaan gabi ahaanba lahayn ciidamada badda, halka Masarna ay haysato 319 markab iyo dooyaha dagaalka oo iyaguna isugu jira noocyo walba. haddaba khilaafka Masar iyo sidoo kale Itoobiya ee u dhaxeeya biyo-xidheenka Niilka ayaa maalmihii u dambeeyay si weyn loo hadalhayay caalamka. halkaad warbixintaasi aad kala socotaan waa Somali TV. daawadayaal meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan ku xidhnow Somali TV. anigoo Cabdirashiid Cali Barra ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe iyo warbixinaheena xiga. waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.